filimka waxa uu ku bilaabanayaa Billy oo 27 jir ah laakiin u dhaqma sida ilmaha yar oo kale caqli ahaan weli ma uusan korin. Maalin walba waxa uu isku mashquuliyaa cabidda khamriga, waxa uuna sidoo kale la ciyaaraa saaxiibadiis isagoo adeegsanaya khiyaanooyin nacasnimo ah. Wuxuuna saacado badan ku qaataa akhrinta joornaalada isagoo sidoo kale daawanaya sawirada qaawan. Dhanka waxbarashada wax horumar kama samaynin tan iyo intii uu dhigan jiray dugsiga hoose iyo dhexe, taas oo ka careysiisay aabihiis Brian. Brian waa ninka aasaasay mid ka mid ah makhaayadaha ugu waaweyn waddanka Mareykanka, waxa uuna had iyo jeer ku taamayay inuu hantidiisa ku wareejiyo wiilkiisa. Balse markuu arkay nolosha caruurnimada ah ee uu wiilkiisa Billy ku nool yahay, waxa uu ka qaaday niyad jab, waxa uuna go'aansaday inuu bedelo go'aankiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, Brian waxa uu gurigiisa martiqaad ugu sameeyay saaxiibadiisa ganacsiga si ay casho u wada qaataan. Laba ka mid ah martidaasi waa Eric oo ah maamulaha shirkadda iyo Carol oo ah ku-xigeenkiisa. Labadan nin waa kuwa Brian uu ku tiirsan yahay marka loo fiiriyo go'aanada muhiimka ah ee uu qaato. Brian waxa uu rabaa inuu ku dhawaaqo inuu howlgab noqonayo, waxa uuna ku fikirayaa qofka uu hantidiisa mas'uul uga dhigi lahaa. Laakiin Billy waxaas oo dhan uma muuqdaan oo waa uu iska ciyaaraya, waxa uuna ka qasayaa hadalka. Eric oo ah maamulaha shirkadda aad ayuu u neceb yahay Billy, waxa uuna sameynayaa wax kasta oo suuragal ka dhigaya in Billy uu sii ahaado ilmo yar oo aan qaangaarin si uusan mas'uuliyadda shirkadda iyo xilka maamulkaba ugala wareegin. Waxa uuna sameynayaa waxyaabo qosol leh si uu Billy uga xanaajiyo, taasoo keenta inuu qayliyo sida carruurta oo kale. Ugu dambeyn Brian waxa uu ku qaylinayaa Billy, waxa uuna ku dhahayaa bax asxaabtaada la soo ciyaar. Kadibna waxa uu raacayaa saaxiibadiis iyagoo aaday maqaayad cuntooyinka fudfudud lagu iibiyo. Iyagana waxay u hadlayaan sida carruurta oo kale iyaga oo ku dayanaya saaxiibkood Billy. Eric waxa uu isna ka faa'iideysanayaa maqnaanshaha Billy, waxa uuna u sharaxayaa aabihiis dhammaanba waxyaabaha uu Billy ku xun yahay. Waxa uuna u sheegayaa in Billy uusan marnaba qaadi karin mas'uuliyad intaasi le'eg. Waxa uuna ku dhahayaa waa qalbi carruur oo aan marnaba ka soo bixi karin waajibaadkiisa. Waxa uuna Brian ku qancinayaa inuusan mas'uuliyaddaasi dusha u saarin. Carol isaga waxa uu u muuqdaa qof daacad ah, waxa uuna ku dhahayaa waxaan mar walba ka qabaa rajo, taasoo ah inuu mar un isbedeli doono isla markaana uu qaadan doono mas'uuliyaddiisa. Balse Eric ayaa ka diidaya isaga oo dhahaya ninkani waa qalbi carruur, mana lahan wax rajo ah. Eric waxa uu rabaa inuu isaga noqdo madaxa shirkadda, sidaasi darteed waxa uu sameynayaa wax walba oo uu hoos ugu dhigi karo rajada uu Brian ka qabo wiilkiisa. Habeenkii dambe Brian waxa uu wiilkiisa Billy uga wacayaa xafiiskiisa si uu ugu sheego inuu go'aansaday inuu shirkadda ku wareejiyo Eric, maadaama uu u arko qofka ugu kartida badan shaqaalaha shirkadda. Billy isaga ganacsi iyo waxaasi oo dhan shaqadiisa ma aha, waxa uuna ka fikirayaa oo kaliya waxyaabo hoose. Waxa uuna aabihiis ku dhahayaa aabe ninkaasi ha ka dhigin maamulaha shirkadda, waayo waa nin xun, mana isiinayo lacagta aan uga baahdo. Laakiin Brian go'aankiisa ayuu ku sii adkaystay markuu arkay sida carruurnimada ah ee uu wiilkiisa u hadlayo. Billy ayaa sidoo kale aabihiis u sheegay in Eric uu macallimiinta iskuulka siiyo laaluush si ay darajooyinkiisa imtixaanka u noqdaan kuwa aad u hooseeya. Inta uu iskuulka dhiganayay isagana wax horumar ma sameynin, waxaana khiyaano iyo dhagar la daba jooga Eric isaga oo lacag siiya macallimiinta iskuulka si haddii uu imtixaanka si sax ah uga shaqeeyo ay uga qaldaan isla markaana uu imtixaanka ugu dhaco. Billy isagana waa magudbe caadi ah, waxa uuna xitaa dhaafila yahay dugsiga dhexe, sidaasi darteed ma jirto sabab uu ku diidi karo go'aanka aabihiis. Si uu fursad u helo ayuu Billy aabihiis waxa uu ka codsaday inuu siiyo fursad labaad. Waxa uuna aabihiis u ballan qaaday inuu waqti kooban uga gudbi doono fasal kasta oo dugsiga hoose ilaa iyo dugsiga sare ah, isagoo ballan ku qaaday inuu dhammaantood ka gudbi doono isla markaana uu imtixaanka ku baasi doono. Brian oo aad ula yaaban isla markaana aaminsan inaysan taasi suuragal ahayn ayaa isna u ballan qaaday haddii uu sidaasi sameeyo inuu ku wareejin doono shirkadda, laakiin haddii uu ku guuldareysto Eric ayaa noqon doona madaxweynaha shirkadda. Brian fikraddaasi maadaama uu wiilkiisa aad ugu qancay, waxa uu bilaabay inuu waco iskuulka si uu wiilkiisa uga diiwaan geliyo fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Subaxdii xigtay shaqaalaha guriga ayaa u diyaarinaysa cuntada, waxa uuna aadayaa bannaanka si uu u raaco baska iskuulka. Baska ayaa ka tegaya, kadibna aabihiis ayaa ku qasbanaanaya inuu geeyo iskuulka. Qofka ugu horeeya ee uu iskuulka kula kulmayo waa macallimadda fasalka saddexaad ee iskuulka, taas oo soo dhaweysay, waxayna macallimadda u muuqataa inaysan jeclayn dadka maalqabeenka ah. Marka uu galo fasalka waxa uu la kulmayaa ardayda galaaska dhigata oo ah arday aad u yaryar. Si degdeg ah ayay isu fahmayaan sababtoo ah isagaba waa qalbi carruur, inkastuu yahay qof weyn balse dabeecaddiisa waa sida carruurta oo kale.
waxay isla akhrinayaan sheekooyinka ku qoran buugaagta, way wada ciyaarayaan, waxayna wada qaadanayaan waqtiyada nasiinada. wuxuuna kula ciyaarayaa wax kasta oo ardayda yaryar ee fasalka koowaad dhigata ay ku ciyaarayaan. waxaas oo dhan Billy wuuba ku raaxaysanayaa. waalidiinta carruurta iskuulka dhigata ayaa aad ula yaabaya ninkan weyn ee galaaska koowaad dhiganaya, waxayna macallimiinta u sheegayaan inay uga baqayaan carruurtooda inay dhibaato uga timaado ninkan iskuulka la dhiganaya. labada toddobaad ee ugu horeysa wuxuu ku qaadanayaa madadaalo iyo ciyaar. Billy waxa uu la saaxiibayaa dhammaan ardayda fasalka dhigata, wuxuuna noqonayaa mid ay jecel yihiin. sidoo kale waxaa jecel macallimiinta iskuulka, inkastoo mararka qaar uu u dhaqmo sida carruurta oo kale, taas oo macallimiinta ku noqota la yaab, isaga oo xitaa carruurta kula dhegaya waxyaabaha ay ku ciyaarayaan. intaasi kadib waxa uu ka gudbayaa fasalka koowaad, waxa uuna qabanqaabinayaa xaflad qalinjibin sidii isaga uu ka qalinjibiyey dugsiga sare oo kale. saaxiibadiis ayuuna xafladda ku cazumaya. xafladana waxa uu ku diyaarinayaa hadiyado ay ku jiraan shukulaato iyo sidoo kale saacado qaali ah. aabihiis oo aan rumaysnayn inuu wiilkiisa ka gudbay imtixaanka fasalka koowaad ee dugsiga hoose ayaa la yaabaya, halka Eric uu ka muuqdo niyad jab maadaama Billy uu samaynayo horumar. Billy waxa uu si fudud u baranayaa akhrinta qoraalada, waxa uuna usii gudbayaa fasalka labaad ilaa iyo fasalka saddexaad. macallimadiisa markii hore ma aysan jecleen, laakiin markay aragto isaga oo caawinaya saaxiibadiisa yaryar ee iskuulka la dhigta, waxay ogaatay inuu yahay qof aad u qalbi wanaagsan. markii uu fasalka saddexaad ka gudbay, wuxuu ardayda iyo macallimiintaba ku cazumaya xaflad kale oo aad u weyn. macallimadiisa ayaa imaanaysa xafladda, waxayna u keentay hadiyad. halkaasna labadooda waxa uga bilaabanaya jacayl. waqtiga waa uu sii soconayaa. Billy waxa uu noqonayaa qof daacad u ah waxbarashadiisa, laakiin Eric waxa uu bilaabayaa qorshe cusub si uusan Billy u guuleysan. wuxuu helayaa macluumaad qarsoon oo ku saabsan madaxa iskuulka oo lagu magacaabo Anderson, wuxuuna maamulka ku qasbayaa inuu been ka sheego in Billy uu laaluush siiyey si uu imtixaanka iskuulka ugu baaso. arrinkaasina waxa uu noqday fadeexad weyn, waxa uuna ka xanaajiyey aabihiis. Brian waxa uu rumaysanayaa hadalka Eric, ganacsigiisa ayuuna ku wareejinayaa. Billy oo aad uga murugaysan kana xumaaday in dadaalkiisii uu noqday hal bacaad lagu lisay, ayaa dib ugu noqonaya noloshiisii hore ee ciyaalnimada. laakiin macallimadiisa oo xaqiiqda og ayaa ugu tagtay guriga, waxayna ku dhiirigelisay inuusan marnaba joojinin dadaalka uu wado, isla markaana uu sii laabo. maalintii dambe ardaydii yaryaraa ee Billy iskuulka la dhiganayay ayaa waxay mudaharaad ka hor dhigeen guriga Anderson oo ah maamulka iskuulka, taasoo maamulka ku khasabtay inuu runta sheego. waxaana halkaasi ka caddaatay in Eric uu ku khasbay inuu been ka sheego Billy. markaas Brian aad ayuu ugu farxayaa, waxa uuna go'aansanayaa inuu wiilkiisa siiyo fursad kale. Eric ayaa diidaya, waxa uuna ku hanjabayaa dacwad, waxa uuna ku doodayaa in Billy uu mar walba yahay damiin magudbe ah. Billy isagana wuxuu soo jeedinayaa in labadooda loo qabto tartan aqooneed si loo ogaado qofka labadooda aqoon badan, si arrinka oo dhan hal mar loo xalliyo. qofkii tartankaasi ku guuleystana uu noqdo madaxa shirkadda. waxaa loo qabanayaa tartan adag, waxaana lagu tartamayaa xisaabta, cunto karinta iyo waxyaabo kale. waxa uuna Eric aad ugu fiican yahay xisaabta, taasoo Billy caqabad ku noqotay. wareegii ugu dambeeyey ee su'aalaha, Billy waxaa la weydiiyey su'aalo badan, wuxuuna helayaa dhibco aad uga badan kuwa Eric. balse Eric markuu ogaaday in laga guuleysan rabo, waxa uu la soo baxayaa bistoolad si uu u dilo Billy. ugu dambeyn Billy waxa uu ka qalin jabinayaa iskuulka, wuxuuna aabihiis ka codsanayaa in maamulka ganacsigiisa uu u dhiibo Carol inta uu isaga kasoo dhammaynayo jaamacadda, maadaama Carol uu yahay qof daacad ah islamarkaana u qalma in la dalacsiiyo. waxa uuna sidoo kale shaaciyey inuu bilaabi doono waxbarashadiisa jaamacadeed. filimkana waxa uu kusoo dhammaanayaa iyadoo Billy uu aad u faraxsan yahay, islamarkaana uu waqti la qaadanayo saaxiibtiis oo horey u ahayd macallimadiisa iskuulka. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, kuna soo biir janalkeena adigoo subscribe taabanaya.